aad iyo aad uga mahad celinaynaa wafdiga iyo madaxweynahaba sida wanaagsan oo sharafta iyo karaamada leh noogu soo safeen inay nagala qayb galaan xafladda caleemasaarka natiijadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday Puntland 8 bisha. waxaan ku faraxsannahay inay shacabka Puntland iyo dawladduba ay maanta ay soo dhaweysay madaxweynaha iyo wafdiga ballaaran la socday iyo safiirada Soomaaliya u fadhiya magaalada Muqdisho caalamka. waxay noo tahay sharaf gaar ah. waxaan runtii aad iyo aad uga mahad celinaynaa sida sharafta leh oo waalidnimada leh adiga iyo shacabka reer Puntland sida wanaagsan loo soo dhaweysay aniga wafdigeyga iyo marti sharafta kale oo ila socota. runtii waa filaynay soo dhaweyntan wanaagsan oo waalidnimada leh waa filaynay xaqiiqatan insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa inaan joogno adiga laba casho haddii Ilaahay yiraahdo waan idin la wadaagno caleemasaarka iyo dabaaldega oo aan la hadalno shacabka reer Puntland khaasatan reer Garowe haddii ay yiraahdo waana ku hambalyeynaa doorashadii sida wanaagsan u dhacday oo transparency ahayd oo adduunka oo dhan laga fiirsanayay murashaxiintii kalena iyaga naftigooda waxaan leeyahay hambalyo yaan leeyahay sida wanaagsan runtii uga qayb galeen doorashada kulligoodna ay u aqbaleen natiijada